xubno ka socda booliiska iyo nabad sugidda caasimadda oo ay hogaaminayaan saraakiisha labada talis ayaa ka faa'iideysanaya tababarkan oo ku saabsan habka baarista dambiyada iyo habraaca sharciga waxaana tababarkan uu soo agaasimay xafiiska gudoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Maxamed Cabdi Kadiye bixin doona qareena ka yimid magaalada Muqdisho oo hogaaminaya Abukaate Ismaaciil Yuusuf Xalane waxa aan ka duulayna wax kale ma ahan habraaci aan ku gaari lahayn mataqaana qaabkii loogu talagalay cadaaladda waxa waaye koow saldhig waxa cadaaladda koow waxa saldhig cadaaladdu waxay ku xiran tahay amniga hadaanu cadaalad jirin amni ma jiraayo laana laamihi amniga oo shaqooyinkii galay oo soo qabanay waxa loo baahan yahay cadaalad xakamayso oo u tilmaamta maxay tusto qaabkii wax u soo qabanayeen processkii loo maraayay marka koow cadaaladdu way gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareeb Cabdi Xaashi Caroole iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Galgaduud gaashaanle dhexe Sharmaake Cabdullaahi Warsame ayaa bahda garsoorka gobolka ku amaanay tababarkan lagu kordhinayo xirfadda laamaha amniga caasimadda waa mahadsantihiin qareenada yimid caasimadda Dhuusamareeb waa soo dhaweynaynaa ciidamadeena sharafta badan iyo saraakiisha iyo madaxda iyo maxkamadda dhammaantiin waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad maanta waxaan leenahay waa maalin taariikhi ah meeshaan waxa waaye hadduu ilaa yiraahdo dawladnimo sal fadhidaan ka rabnaa insha Allah bil kariim oo sharcigeedu u dhameystiran yahay aad iyo aad baan idin bogaadinaynaa waan ku mahadsantihiin sida wanaagsan oo aad tababarka ugu furaysaan ciidanka booliiska tababarkaas oo wada shaqaynta booliiska iyo maxkamadda isku xirka booliiska iyo maxkamadaha iyo wada shaqaynta taasoo degmaduna aad ugu baahnayd degmooyinka kalena ay u baahan yihiin aad baan idinku mahadcelinaynaa waan idin soo dhaweynaynaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Maxamed Cabdi Kadiye ayaa ugu dambeyn sharaxaad ka bixiyay ujeedada ay waqtigan ugu soo beegeen tababaridda laamaha amniga caasimadda habka baarista iyo dambiyada iyo habraaca sharciga ayaan halkan maxay tool u joognaa maanta inaan ku daahfurno oo ujeedkanu uu yahay in booliiska ayagoo shaqadoodii oo ay og yihiin lagu soo tababaray laakiin qaabkii ay bulshada markii dambe u galaan ay u sameyn lahaayeen habraaci ay soo marsiin lahaayeen ilaa ay ka imaadaan maxkamaddii ayaan halkan u joognaa qodobada halkan inta u badan la akhrin doono waxay ka bilaaban doonaan habka xeerka ciqaabta oo ay ka bilaabanayso qodobka 12 ilaa iyo 83 qodobadaas inta u dhaxayso inta badan waxa iska leh booliiska ayaa iska leh oo shaqadooda ay tahay muddo 12 maalmood oo tababarkan uu socon doona ayay xubnaha laamaha amnigu ka faa'iideysan doonaan hababka baarista dambiyada iyo ilaalinta sharciga oo qayb ka ah ujeedada bixinta tababarkan Cabdullaahi Warsame warbaahinta ciidamada qalabka sida Dhuusamareeb.